salaan ka bacdi waxaan rabaa marka u horeysa in aan u mahad celiyo walaalaheen Somlink oo maantay aan halkan ku joogno goobjoogna aan u nahay farxadna ay noo tahay inaan kala qayb galno iyadoo la siinayo laysinkii maxaan ku raahdaa electronic money-ga bangiga dhexe oo bixinayo marka waxaan leeyahay hambaliyaan leeyahay waana soo dhaweynaynaa runtii waxaan leeyahay ganacsatada Soomaaliyeed ana codkooda ku hadlayo farxaday u tahay barnaamijkan electronic money-ga bangiga dhexe oo gacan ka siinaya iyo wasaaradda maaliyadda horumar fiican oo u yahay ganacsigeena Soomaaliyeed markaad fiiriso dadku inta badan waxay u fiirinayaan isticmaalkan yarka ah anaga markaad si u fiiriso ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxay wax ku kala gataan oo hadda ay isugu diraan waa electronic money-gaas waan ugu faraxsanahay hadda shirkadii saddexaad inay qaadato Soomaalidu waxay ku fiican tahay waa tartan badan tahay waana aaday maartay barnaamijyaas u jeceliin anagana dantu waxay ku jirtaa in competition-kaas tirada badan la oo jiro si ay marka istiraahdo qoladaani waa loo gacan galay ay rabaan inay percentage ugu bilaabaan hadii mid kale oo cusub oo 2 sano baroobeynay oo soo galo kaas markuu asagana guuleysto isiraasanta aan saaratid markaan ay laba kala hadana soo galaan anaga dan badan aan ugu jirta ganacsadeena tartankaasna aad oo noo anfaca waxaan leeyahay marka Allah idin guuleeyo waliba xaaladda dalkeena hadda uu ku jiro barnaamijkaasi aad u muhiim u yahay marka gobolada wax ku kala gadanayno ama badeecadaha aan isugu dirayno ama si loo kala gadanayo aad u muhiim noogu yahay waana fudayd waliba bangiga marka aad damacdid inaad jeeg ah qof wax ku kala gadataan inta wax kala gadanaysaan ama lacagta la siinayo sicirka caalamka isbedela waxa laga yaabaa in laga baxo laakiin electronic money-gaani yarka kala gadateen lacagtii waa dhiibtay waxaagina waa kala gadaysay markii waa kala dhamaateen waxaan idin sheegaa ganacsatada Soomaaliyeed aad u horumarsan yihiin waana ku hambalyeynaa maantada waxaan meeting laan arkay groupka energy-ga shidaalka caalamka kor u kacay waxaa moodaa mas'uuliyad gooni iska saarayaan waxay ka fikirayeen si dalkan shidaal degdeg loogu heli lahaa oo marka aan business xataa loo fiirinayna aan shidaalku inuu san kala go'in markay waa fiiriyeen waxay dhayn 16 kun oo tan dalka dhanba taala sidii marka looga gaari lahaa inaan dalkan ka kala go'in ay markiiba ka fariisanayaan marka waxay ku tusaysaa awoodda dawladnimada iyo policy-geeda iyo business-ka isna socdo aad isu kaabayaan mararka qaarkood ayadoo la tashanaa la isku dhac socda alxamdulillah waxaan leeyahay ganacsatada Soomaaliyeed guuleysta maalmahana waxaad moodaa ganacsigan soo horumarayo iyo dadka hadallada oo maxaan ku raadaa lagu hayo doorashooyinka aad u kala duwan tahay markii waxaad arkaysaa maalin walba xaflad oo maxaan ku raadaa dhismo xaflad oo maxaan ku raadaa furitaan oo bangiyo xaflad oo maxaan ku raadaa telecommunication la siinayo maxaan ku raadaa leasing la siinayo waxba nagu soo kordhay aadan marka waxaan leeyahay aan u horumarsanahay dhinacaas waana firfircoonida ay runtii aad moodid sida dalku u yaalo iyo sida business-keenu yahay in aad u kala duwan tahay laakiin waan iska daba gelinaa mar dhow insha Allah hadii la iraado ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gudoomiyaha bangiga dhexe oo runtii aan isleeyahay in barnaamijka dadku hadda aad u fiiriyaan laakiin isu furitaanka bangiyada ee jeegaga wax badan oo la taray sababtoo ah waxaan arki jirnay markaad damacday inaad business furato waxa u baahan tahay 11 bangiba in akoon ka furato markay qof walba oo kula tacaamulaya ama badeecad ka iibsanaya waxay noqonaysaa inuu bangi oo lacagta u kirada aniga igama furna bangigaas akoon kaasaan leeyahay marka mid walba waxay noqonaysaa akoon ka furato laakiin waxa alxamdulillah maanta hal akoon inaad furan karto dhamaantoodna aad maartay lacagtaadi aad isu siin karto waa faa'iido soo korortay waaye waana shaqo ay noo qabteen bangiga dhexe wasaaradda maaliyadda aadan ugu hambalyeynaa iyo waliba gudoonka bangiyada oo isleeyahay ururka bangiyada wax badan oo taray isla jiritaankooda iyo wadashigooda waana isleeyahay sektarada ganacsiga oo ka kooban yahay sektarada ugu muhiimsan oo kamid ah sababtoo ah financial-keena qaybta dhaqaalaha oo ayaga dhan base noo ah waay aadan ugu mahad celinaa waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan u hambalyeeyo Somlink oo maanta halkan ku qaadan doonta laysinkii e-pesa dadku inta badan waxay u arkaan magac laga soo miguriyay Kenya ama e-pesaas waxa loo qabaa in peso kale dadku qaad u qaadanayo laakiin markaad fiiriso lacagta Soomaaliyeed 1909 lacagta Soomaaliya ay isticmaalaysay magaceeda waxay ahayd pesa la dhihi jiray mar dambe shilinka lagu bedelay maayne magaceena hore wuxuu ahaan jiray pesa ay ahaan jirtay lacagta Soomaaliya isticmaasho ilaa haddana gobolada qaarkood ama gobolada xadaariga ah marka tiraa lacagta shilin Soomaaliga pesa ma haysa oo kale pesa ma haysa dad milis waa luqad hore waaye ma ahin in pesada iyo pesa laga wadeen shilin Soomaaligu mar dambe uu yimid magaca saxda oo loo yaqaan pesa marka waa ku hambalyeynaa magacaasi inuu yahay
magaca Soomaali ah oo runtii la soo xasuusin doona inaan anagu lahayn jirno magacaas waana maasantiin waxaan leeyahay somlink iyo ibsaba iyo liska maanta waxaan leeyahay farxad iyo guul insha Allah waana maasantiin